kooxda heerka koowaad ee ka dhisan magaalada Hargeysa oo kooxda dawladda hoose ayaa mushaharka boqolkiiba 50 loo kordhiyay taasoo ciyaartooyda kooxda dawladda hoose ay ugu mahadceliyeen duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Caydiid Solteko sidoo kale waxa ay u mahadceliyeen xildhibaan Ismaaciil Cagir oo qayb weyn ka ah kooxda dawladda hoose maamulka kooxda dawladda hoose ay ka mid yihiin gudoomiyaha kooxda dawladda hoose Maxamed Haybi haddaba munaasabadda waxaa hadal ka jeediyay gudoomiyaha kooxda dawladda hoose macalinka kooxda dawladda hoose iyo kabtanka kooxda dawladda hoose iyo qaar kamid ah ciyaartooyda kooxda dawladda hoose waxaana hadaladoodii kamid ah sidan bismillahir rahmaanir rahiim alxamdulillahi rabbil caalamiin xafladan isugu imanay maanta kooxda caasimadda Hargeysa marka hore aad baan idin salaamayaa waxa barteena jooga astaan sports oo runtii iyaguna aad ugu hambalyeelay dhiirigelinta dhalinyarta ku hadlaya afka kooxda kubadda cagta ee caasimadda Hargeysa oo aan uga wakiilahay dhalinyarada maanta halkan taagan iyo kuwa kale naga maqanba waxay taladu ay tahay ama ay abaalmarintu tahay ama ay tahay sharaftu maanta aan maayirka siinayna ama maayir ku xigeenka ama xogayahaba iyo xildhibaan Cagayare oo isagu ah dhaqaajiyaha ama ninka ka dambeeya mar walba dhalinyarada hawshooda ama taakulinta ama tabantaabadeeda in maayirku uu maanta boqolkiiba 50 u kordhiyay shaharkooda taa waxa ka horgeysay inuu boqolkiiba 100 u kordhiyay ciyaarihii ka horeeyay ciyaartiina dhex martay kooxda Kenya dadkii joogay way arkayeen siday u dhacday isku xidhnaanta kooxda kubadda dawladda hoose iyo nimanka aanu la ciyaareynay jid iyo orodaya haday tahay iyo jimicsiba ilaah baa mahadaale guusha maanta Hargeysa Somaliland tiimka kooxda kubadda cagta ee dawladda hoose ilaahay soo gacan galiyay waxaan inta raacinaya ilaahay baa mahad leh waxaan leeyahay hambalyo maayir iyo maayir ku xigeen iyo xog hayaba waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan idin haynaa waan idin garbar taaganahay mar walbana waxaan diyaar u nahay horukaca iyo horumarka sportska dawladda hoose inaan ka shaqeyno waxaan rajaynayaa insha Allah in kulamo kale oo ka qaalisan iyana aad nagala qayb qaadan doontaan oo waxa weey dhawaan nagu soo fool leh taana waxaan leeyahay billahi tawfiiq kulankan oo muhiimadiisu tahay inaan ugu mahadnaqno maayirka caasimadda oo mushaharka u kordhiyay ciyaartooyga dawladda hoose Hargeysa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa maamulka dawladda hoose Hargeysa guddiga fulinta xogayaha dawladda hoose Hargeysa maayir ku xigeenka iyo maayir Maxamuud Cabdiraxmaan Solteko oo isagu ah maayirkii ugu horeeyay oo ciyaartooygan aan markii koobaad iyo markii labaad ay u kordhiyaan ay ahayn muddo 3 jeeraba mushaharka u kordhiyay oo gaarsiiyay inay ka mid noqdaan ama noqdaanba kooxda ugu mushaharka sareysa ee caasimadda ka ciyaarta iyaguna dadaal fara badan sameeyay maayirku aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay inuu dhalinyarta heerka gaarsiiyo sportiga dhinac istaago maaha abaalkan uu wax u qabtay maaha kooxda caasimadda Hargeysa kaliya kooxaha caasimadda oo dhan waxay u tahay dhiirigelin waayo maamulada kale kooxaha kale hogaamiya iyaga laftoodu inay ku daydaan maayirka oo dhalinyarta barbar istaagaan oo mushaharka u kordhiyaan oo dhiirigeliyaan aad iyo aad bay qurux badantay waxaanu halkan ka xusaynaa oo isagana ilaawi karin xildhibaan Ismaaciil Jaamac Xirsi Cagayare oo isagu ah hormoodka kooxdan caasimadda oo isagu ka shaqeynayay intaaba mushaharka u kordhiyay haddii waqtigiisa noqoto haddii ay noqoto dhiirigelintiisa mahadnaq ah in maanta kooxda caasimaddu hawshii iyo juhdigii badnaa ay la garab taagnaayeen 24 saacadoodba maayirka maayir Cabdiraxmaan Solteko iyo xildhibaan Cagayare abaal ay gashadeen kooxda ma anuguna ugu abaal gudnay in si qurux badan aan u ciyaarno sharaftoodana kor ugu qaadno iyaguna dhiirigelin hadiya habeen ay la garab taagan yihiin hadda kooxda dawladda hoose waxay maanta isku qortay taariikhda adduunka waxayna ka mid noqotay kooxaha ugu faca weyn leh Soomaaliland kooxdana waa kooxdii caasimadda matalaysay kooxdan waxaan ku taageernay waxyaabo badan waxay haystaa coach khabiira coach tir dhaba cid garanaysa waa garanaysa cidii hashaarana si bay leedahay kooxda dawladda hoose waxaan ku taageernay marka hore aragnay kabtankii hore kooxda oo gabiyaaye iyo ciyaartooyda soo kacaysa mustaqbal caasimadda ku leh way caasimadda way wada taqaanaa cidda matalaysa sumcadeeda matalaysana waa inaad marka hore aanad ku lugooyn kooxdan ninka derby country taageeraya ninka Barcelona taageerayaba taageeraha way ka sameeyeen si nin kasta nina guul darada habeen kasta waa guul daro nina habeen kasta waa guul marka kooxdan hormuudka caasimadda ee dawladda hoose way ku mahadsan in la taageero way u qalmaan inay garanaysa matalaan caasimadii